tirada hadda maanta 20 qofood inta ka badan meesha ku geeriyootay waxay ka jirmaysaa Soomaaliya ka jirmaysaa qabiilka jirmaymayso lambarka hadda Soomaaliya inta soo milyan waan la inta soo milyan aan nahay 8 milyan 20 15 waxaan nahayba intaas ka jirmaysaa macna marka aan aqal isu yeelno bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore idin salaamaya saabta xiran xogsahan meedi salaan kadib rabaa inaan saddex qodob anagu hadlo dagaalkan ka soo cusboonaaday galgaduud horta dalkeena waa dawlad federaal ah anagoo isku diina isku dadda isku afaadana waxa la yiri Soomaaliya waa burburteen waxa u baahan tihiin dawlad federaal ah dawlad federaal ma u baahanahay la yiri ha okay federaalka iyadoo Soomaalida macnahooda aan fahamsaneen isku soo qaadanay dhawarkan isku soo saaranay la soo aadnay guryaheeni federaalki waa la sameeyay walba waxa waayo tiyaarado deganay dawlad loogu sameeyay taas markii marayso dawladda dhexe wuxuu waajib ka saaran yahay dalkaas madax banaanadiisa midnimadiisa inay ilaaliso maamul goboleedkana waxa looga baahan yahay dadkaas maamulku loogu dhiibay abaa'il walba inta isku dhow dawlad ha loo geeyo guryahooda loo geeyo la yiri inay kala maamulaan shacabkana waxa laga rabaa marka dadka isku deegaanka isku dawlad yihiin inay nabad cid walba kula noolaato hadda wadamada dariska maamul goboleed waa ka jira Kenya oo kale gobolada jiro ayagu hataa wali isku dad ahayn afeen aan isku diin ahayn sidaas oo kale Ethiopia saas oo kale waa dad qowmiyada kala duwan Soomaaliya ku jirto cid walba ku jirto waxa waay marka hadana ka soo dawaayadan dabadeen naftigeeda dagaal ay ka jiraan laakiin dagaalada ka jiraan waxa dagaal ka macna weyn anaga waxaan isku haynaa waxa rabaa marka yaan hore koonfur galbeed dagaal qabiila ka dhacay waxa taqaablo hay'adaha oo heshiisiin dadkii marka isku daaleen in walba gurigiisa u kala aaday taas waa taas hadda dhibaato kama jiro hadda waxa jiro dagaalka soo cusboonada galgaduud gobol aad u weyn galmudug ayaana ka taliya ka arrimiya waxa la isku dagaalay biyo lagu keydiyo baraagad dagaalkaas hadda meesha ka dhacay oo dadku ku baaba'ayaan waxa ka qasaareeyay dal xayada ka qasaareeyay waa dagaal aad iyo aad isku hoobtay 20 meeya hadda xalay iyo waagaan la sheegay hadda ma aqaan wax ka soo cusboonaaday iyo hadda wax la isku hayo waxaan rabaa marka inaan madaxda maamul goboleedyada u sheego walaalayaalow waxa dadkaas madaxda idin kala dhigay waxa waaye guryahooda ku kala celisaan kulama mashan Soomaaliya waa la isdili waa la isdhibaatay dagaal sokoya la galay 30 sano kala maqneen hadda isku soo laabanay intii yarado hadda dawladaha loo sameeyay ma ahayn maanta dhibaatadaas ay ka dhacdo dadka qofba ilaahay meelo ku makaanay waa la ogsoon yahay war maanta qofka walaalka hadda maanta meeshii ilaahay asii ku makaanay gobolkaas ilaahay ka dajiyay hadii ay abaar hayso meeshan adiga xagaaga deegaan ahaan salka aad ku milkidiyo degan tahay u soo ruqaansadiyo tabarta bidayno meesha ku abaar baxo halkaas oo imaaday macnaheedu ma inuu ka qaadanayo ma arrin wax la qaato ka weynta marka waxaan leeyahay dagaalka meeshaas ka soo cusboonay Allah qaboojiyo maamulka galmudugna waxaan leenahay reer cadaado iyo reer cabuud waqada waxa dad walaalaha wada dhashay waaye inay meeshaas ay xal ka sameeyaan dadkeena anaga inta badan waxaan aragnaa dawladii guryaha la dhisaa inta badan waa aragnay jidid hal dhisaa leh wax qabada leh qabadkaas la sheegay waxa ka qiimo weyn dadka in la dhiso dadka in wadaniyadooda la dhiso moraalkooda la dhiso in yaani Soomaali ay tahay in dadka laga gado hadii qofka siyaasiga ama leaderka oo inta sameyn karo ahaantii wax dad inta uu hor istaago oo yiraahdo idin hogaaminaa meesha kuma jirto maxaa yeelay hadii laba qofood walaal isla dhashay isku dad isku diin isku af oo ilaahay hal deegaan hal gobol wada beeradaad ma heshiisiin karin maamul sheegata horta ama adnin mas'uul ama madaxweyne ama ku-xigeen ama wasiir la sheegto horta runtii ma aqaan wax micno soo kordhinayso waxaan Soomaaliya oo ugu baaqaya walaalayaal federaalka la sheegayo aan qaadanay ma aha wax micnays aan fahanni ma aha waxa loogu talagalay federaal waxa waaye dad kala diin kala dad kala afay lagu federaaleeyo oo hal dawlad loo dhiso oo leeyahay in walba inta adiga aad afkaas ku hadasho maamul laakiin Soomaaliya iyo anagu isku dad isku diin isku dhaqan oo yaani ilma abtiilma eed ah ayaa waxaan loo sameeyay dawladahaas waxaan loogu talagalay maadaama dadka burbur oo soo kala gaaray in cid walba fadhigeeda lagu xalliyo marka waxaan leeyahay taas ma dhicine shacabka Soomaaliyeed oo adinka soo damqada yaani dagaaladan iyo waxaan isku baacsanaysaan iska dhaafa qofka dhimanaa waa qof muslimna kan dhaawacma sidaas oo kale waa walaalka Soomaaliyeed tirada hadda maanta 20 qofood inta ka badan meesha ku geeriyootay tiradaas waxay ka jirmaysaa Soomaaliya ka jirmaysaa qabiilka jirmaymayso lambarka hadda Soomaaliya inta soo milyan waan la inta soo milyan aan nahay 8 milyan 20 15 waxaan nahay intaas ka jirmaysaa macna marka aan aqal isu yeelno galmudug waxaan leeyahay in walaalayaal dadkaas xal u keena ilaa xal keeni kara xal u keena madaxweyne ku-xigeenka Cali Ciid iyo madaxweyne Qorqor labadiina waa idin qusaysaa aad iyo aad u mahadsantiin billahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.